marka ugu horeysa anigoo ka wakiila jaamacadda Hargeysa maamulkeeda waxa aan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aan barnaamijkan kobci garaadkaaga waxa weeye intii uu hadalkii xafladdu socotay waxaan ogaaday inay fikraddu wasiirka ka timid waa in kobcinta garaadku gurigaaga taala kobcinta garaadku guriga ka soo bilaabantaa aad baan ugu mahadnaqayaa shirkadda Telesom oo baahinaysa aqoonta noocaasa guul iyo gobonnimo iyo garaad inoo kobca oo aynu guryaheena ka soo bilowno aad iyo aadna waa mahadsantiin aad mahadsantiin shirkadda Telesom hadda kala qayb qaadanaysa waana qurux badan tahay qaabka loo dhigay ee ah in aanu noqon wax shirkad u xiran sideen awal u naqaanay laakiin maanta baahidii jirta iyadu kafaysay hase yeeshee laakiin berri ama sanadka dambe ama sanadku sii xigaba ay cid kale ama laba ama saddex shirkadood ay ka wada qayb gali doonaan si wixii markaa jiritaankiisa iyo socoshadiisa ay u noqdaan wax jira waa madal lagu daahfurayo barnaamij aad iyo aad u qiimo badan oo waxtar badan u leh dadka halkan Mala Cabdiwahaab wuxuu ka yidhi dhalinyaradu aniga iyo ciidankayga uu halmaamee odayaal iyo dhalinyaro intaba waa barnaamij aynu loogu talagalay oo ay wasaaraddu leedahay daadihinaysana annagu haddaanu Telesom nahayna aanu kala qayb galayno taageerayno garab taaganahayna oo magaciisa la yidhaaho kobci garaadkaaga waa magac runtii u qalma in lagu tartamo garaadka lagu tartamo iyo aqoonta ku jirta dadka barnaamijkan kobci garaadkaaga aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ama ugu mahadinayaa si gaara mar haddii wasiirku la sheegay inuu ka soo burqaday maskaxdiisa qofku markuu mas'uul yahay oo meel joogo inuu curin yeeshaa waa mid laga maarmaana aad iyo aad wasiirku ugu mahadsan yahay cid kasta meel kasto joogto boos kasto hayaan ama xil kasto hayaana waxa wanaagsan qofku inuu curin yeesho waxaynu fadgarayn karo wax bulshada ku soo kordhin karo taas ayaynu ku gaari karnaa horumar taas ayaynu ku hiigsan karnaa wadamada horumaray jaamacaduhuna waa meelaha fikirka lagu kobciyo waa meelaha lagu develop gareeyo dadka mustaqbalka ummadda hogaamin doona marka aad iyo aad baan gaar ahaan asagolis aanu soo dhaweynaa barnaamijkan waanu ku faraxsannahay waanu ugu mahadnaqaynaa wasiirka iyo shirkadda Telesom wasaaradda warfaafinta iyo shirkadda Telesom oo barnaamijkan iska kaashanaya aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waanu soo dhaweynaa runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynaa barnaamijkan iyo kuwa la midka ah ee TV-ga qaranka iyo guud ahaan wasaaradda aan ilaahdo warfaafinta iyo dhaqanka ay wadaan waxa maanta sharaf gaara noo ah inaan idinkala soo qayb galno xafladan lagu daahfurayo barnaamijka bisha barakeysan Ramadaan ee kobci garaadkaaga ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelintu ay soo hindistay annaguna aanu qaybta ugu muhiimsan kala qayb qaadanayno barnaamijka dabcan waan garan karnaa bisha Ramadaan oo waxaynu u baahannahay inaynu wax badan faa'iideysano ibni aadmigana maskaxihiisu qofka muslimka ee sooman way furan tahay oo bilihii kale la mid maaha ibliis iyo ninkii shaydaanka ahaa inagu lifaaqnaa ee waqtiyada kale waqti badan inaga lumin jirayna way naga maqan yahay waa inaga xidhay marka in la kala faa'iideysto oo diiniyan iyo dunyawiyan labadaba loo kala faa'iideystaa wax muhiim ah weeyaan barnaamijyada noocan ee bisha Ramadaan baxaana waxay faa'iido badan u yihiin bulshada gaar ahaan dadka guryaha ku sugan ee waqtiyada daawada TV-yada iyo dadka dhalinyarada ah ee jaamacadaha ku jira ama dugsiyada ku jira intaba way ka faa'iidaan waxaa ku jira barnaamijyadan macluumaad badan oo ama kuwa ku saabsan diinta iyo shareecada ama ku saabsan dhaqanka ama ku saabsan aqoon guud intaba oo baahideeda loo qabo waa su'aalo qofka soo dhageysta mid yar iyo mid weyn ka faa'iidayo qofka garanayana waxa laga yaabaa inay u noqoto xasuusin laakiin waxa weeye barnaamij noocaas ah sidaan horeba u sheegay waxa soo hindisay wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta annaguna qaybta ugu muhiimsan aanu ka qaadanaynaa waanu mahadnaqaya wasaaradda uu hogaaminayo wasiirka iyo tiimka la shaqeeyaaba inay barnaamijka noocan ah soo agaasimaan
waxaa sida la tilmaamay ka qayb geli doonaa dhalinyaro aqoon-yahanaa oo ama jaamacadaha ka socda ama dugsiyada saraba ka socda waxaa kasoo qayb geli doona oo su-aalaha ka qayb qaadan doona dad guud ahaan oo dee babliga ka mid oo bulshada ka mid a dadkaasoo dhan waxay heli doonaan abaalmarino wasaaraddu u diyaarisay sidoo kale barnaamijku markuu dhammaado maalinta u dambaysa su-aalaha guud ee halkan laga sheegay maalmaha socon doona waxaa ku jiri doonta su-aal soo noqon doonta maalinta u dambaysa oo lagu qaadan doono abaalmarin gaar ah oo mataqaanaa kediso noqota oo aada uga farxisa ciddii markaa abaalmarintaa hesha su-aashaasina waxay ku jiri doontaa uun su-aalaha maalmaha hore oo dhan 30 Ramadaan soo socda iyo su-aashaas ku jiri doontaa waxay noqon doontaa su-aal surprise ama mufaaja'a ama su-aal kadis ah oo qofku abaalmarin aanu filayn oon abaalmarin hore la mid ahayn lagu bixin doono haddii ilaahay idmo wixii khibradeenu isdheerahay gaar ahaan khibradda tiknoolajiyadeed ee shirkadda Telesom ama shaqaalaheedu ay leeyihiinna waxaanu diyaar u nahay inaynu ugu deeqno qarankan wasaaraddu qayb muhiima ka tahay wacyigelinta iyo warfaafintaba waxay diyaar u yihiin wasiir tiimkayga farsamo yaqaanada ee weliba tiknoolajiyada ku xeel dheer ee dunidu meelo badan lagu tilmaamay inay idinka caawiyaan oo idinla wadaagaan khibradooda tiknoolajiyadeed ee ay leeyihiin iyagoo gudanaya waajibka qarankani ku leeyahay ee ah inaynu qarankan wada leenahay inaynu darafyada hayno in qof kasta dhinaciisa qarankan uu ka taageero waxaad faa'iideysato inaad ummaddan u sii faa'iideyso ugu dambeyn haddaanu shirkadda Telesom nahay waxaanu ballan qaadaynaa inaanu garab taagannahay aanu la shaqaynayno qarankan guud ahaan gaar ahaan wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta oonu kala shaqaynayno dhammaan majaalaadka ay ka shaqayso dhan maadaama imka tiknoolajiyadii ay keentay wixii la odhan jiray mediaha iyo telecommunicationkii waxaad moodaa inay isku mid noqdeen oo waxaa la dhahaa imka ICT information communication technology marka runtii in dhalinyarta iyo dadka loo leexiyo dhinaca aqoonta waa waxaad u qiimo badan marka horta ugu horeyn wasiirka waan ku hambalyeenayaa sababtoo runtii waxay tilmaamaysaa fikir cusub oo loo baahnaa wasiirku inuu keenay oo runtii aad moodo hadhow inuu runtii qaybo badan yeelan doono qaybtan waa qaybtii kadiska laga qaybo badan oo kalena runtii inuu yeelan doono marka run ahaantii wasiirka waan ugu hambalyeenayaa waxaana runtii tilmaamaysaa oo inuu isna bahdii waxbarashada uu ka soo jeedo qaabku u fikiraya taasay tilmaamaysaa Telesom idana runtii waan u hambalyeenayaa oo barnaamijkan runtii isku soo dibiriday oo iyada runtii maxaa ay sameynaysaa waana runtii barnaamij aad u qiimo badan daahfurka barnaamijkan kobci garaadkaaga ee wasaaradda warfaafintu soo agaasimtay siiba in wasiirka wasaaradda warfaafinta shirkadda Telesom ay isgaarsiinta Somaliland dhammaan jaamacadaha iyo aqoon-yahanka reer Somaliland waxa uu qaatay in maxaan ku raday barnaamijkanu waqti cusub iyo waaye cusub iyo waxyaabo fara badan oo laga bedelay oo lagu soo kordhiyay marka barnaamijkan waa barnaamij farxadeed waa barnaamij dhisa maxaan ku raday wadajirka bulshada waa barnaamij qoysnimada maxaan ku yiraahdaa aad iyo aad maxaan ku yiraahdaa u dhiirigeliya waliba sanadkan waxaan aad iyo aad uga codsanayaa dadka qabanqaabinaya soo diyaarinaya su'aalaha in ay ku daraan oo ay ku kordhiyaan barnaamijyada wacyigelinta ee la xidhiidha iska ilaalinta cudurrada faafa barnaamijkan wasaaraddiisa qorshaysa ayaanu ahayn horta barnaamijkani waa barnaamij kobcinaya garaadka dadka oo magaciisa ayaad ka garanaysaa magacana wasaaradda ayuu ka soo fulay waa mid lagu kobcinayo bulshada Somaliland barnaamijkan copyright-kiisa waxa iska leh wasaaradda warfaafinta horta marka u horeysaba oo iyadu soo abaabushay waxaana iska kaashan doona barnaamijkan wasaaradda warfaafinta iyo shirkadda Telesom radio Hargeysa iyo televisionka ayuu si toos ah uga bixi doonaa iyo isagoo repeat ahba waxaanu barnaamijkaasi noqon doonaa ama uu socon doonaa 1 saac ama 60 minutes ayuu hawada ku jiri doonaa ayada oo lagaga bogan doono qofka oo su'aalo weydiin kara iyo telefoon labadaba lagu gudbin doono isla markaana recording lagu sameyn doono kana bixi doono TV-ga iyo radio-gaba isla markaana lagu daabici doono wargeyska dawladda ee Tawan waxay u tahay wasaaradda warfaafinta iyo shirkadda Telesom guul u soo hoyatay barnaamijkan waa kadis si kale u bixi jiray hore uga bixi jiray radio Hargeysa xilliyo hore oo zamaano hore ah waa barnaamij aqooneed laakiin waxa uu ku soo kordhay imika
xilliyada hore ee radio hargeysa ka bixi jiray may jiri jirin wax telefoon oo la adeegsan jiray waxay ahayd xilligaasi dadka la soo fadhiisin jiro dee wax lagu weydiin jiray laakiin imika waxaa lagaga qayb qaadan karaa telefoon marka wuu si casriyoobay magacana waa la bedelay sidaa darteed ayuu copyrightka wasaaradda warfaafinta ay ku yeelanaysaa barnaamijkani runtii waxaa farxad weyni ah inaan maanta daahfuro qormaha cusub magac cusub leh ee loo bixiyey kobci garaadkaaga aragti ahaan inaguma cusba hase yeeshee magac ahaan iyo qaabka loo adeegsan doono ee uu ku bixi doono ayaa ka cusub oo ka gedisan kuwii hore waxaa kaloo iyadana ku cusbaan doonta aragtiyaha la soo gudbinayaa oo aanu ballan qaadaynaa inay ka tayo wanaagsanaadaan kuwii hore annagoo aanu filayno inuu barnaamijkaasi noqdo mid marka uu socdo uu qofnaba ka kici kari waayo oo hataa biyaha doonan kari waayo waxaanu ku soo kordhin doonaa sida ay sheegeen ama ay sheegtay shukri wacyigelintu qayb weyn bay ka qaadan doontaa oo si dadban ayaanu ugu soo dari doonaa barnaamijyo ayaanu dhextaal ka dhigi doonaa aqooneed oo jaamacaddu u baahan tahay oo ay wasiiradu u baahan yihiin oo ay dadweynuhu u baahan yihiin oo ardayda dugsiyada hoose u baahan yihiin waxaanu ku dadaalaynaa in uu koobo qaybaha bulshada jaad kasta oo uu yahayba marka runtii waxaan ku faraxsanahay in aynu hawshaasi wadagelayno jaamacaduhu ay dhagaan noo furi doonaan ardayda ku soo boorin doonaan inay la dhegaysto habka uu baxaya sidaan sheegnay waa habka casrisan oo dalku siduu u dhan yahay qof kasta meesha uu joogo haddii uu telefoon haysto uu ka soo geli karo tartankaana uu ka qayb qaadan doono abaalmarintana halka uu marka la ogaado halkuu joogo halka ugu dhow uu ka qaadan doono waxaanu ku dadaali doonaa dadka debadaha laftooda America iyo Canada iyo Australia iyo Europe iyo Afrika dadka jooga laftoodu waxaanu ku dadaali doonaa haddana imika ka qayb qaadan doonin in ay guga dambe haddii la yiraahdo ay ka qayb qaataan waxaan filayaa inuu noqon doono barnaamijyada ugu xiisaha badan ee ka bixi doona Radio Hargeysa iyo TV-ga qaranka